oday cali maxamuud caatey oo ka mid ah odayaasha degmada xudun ee gobolka sool ahna afhayeenka beelaha degmadaasi ayaa soo dhaweeyay go'aamadii ay soo saareen guddiga dhulbahante iyo fiqishini isagoo sheegay in labada gacmood iyo labada lugood bay u taagayaan masiirka iyo aayaha ka tashiga gobolada sool sanaag iyo cayn sidoo kale wuxuu ismada dhulbahante ugu baaqay inay si degdeg ah u galaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wuxuuna fariin u diray beelaha ay daris wadaagga yihiin sida habar yoonis iyo habar jeclo waxaana hadalladiisi ka mid ahaa sida tan بسم الله الرحمن الرحيم أنا علي محمود عاتية أفايانك بيلاها حدن waxaa halkan baaqaygani uu daaran yahay go'aamadii masiirka ahaa ee ay soo jeediyeen odayaasha iyo waxgaradka dhulbahante iyo fiqishini ee masiirka dhulbahante iyo fiqishini ahaa qodobada 12 ee ay soo jeediyeen maanta oo bishu ay 8 tahay haddii aanu nahay degmada xudun iyo tuulooyinkeeda aad iyo aad baanu u taageersannahay waanu soo dhawaynaynaa waa hambalyaynaynaa labada gacmood iyo labada lugoodba waanu u taagaynaa intaa ka bacdi waxaan halkan isna aad uga hambalyaynayaa garaad jaamac garaad ismaaciil khayr allaha siiya abtigay marna awoow waanu ahay anigu marna waa abtigay ururka iyo shirka iyo midnimada isaga ayaa lahaa bilowgeeda iyo fadhiisinkeeda aad iyo aad baan garaad adna kuugu hambalyaynayaa waxaan kaloo halka kan kaga faa'iidaysanayaa jaaniskan in isimada baaqa loo jeediyey ee mudashareecada ah ninka odayga ah ee hadlay ee yidhi reer waliba isim buu leeyahay iyadoo isimadu ka wada dhexeeyaanoo maanta dhulbahante garaad jaamac garaad ismaaciil uu koobka qaaday oo uu madaxii isimada yahay oo uu wax tacsi iyo geeri iyo mid iyo shir uu isu keeno intaba uu la qaybsaday waxaan leeyahay anigoo jaaniskan ka faa'iidaysanaya garaad cabdulaahi garaad saleebaan waxaan ahaa ninkii qurahee xudun ugu horreeyey ee kaaga hambaliyeeyey baan ahaa muddo shareecada haddii aadan gobolka ku gelin oo ku tegin waxaan kugu sheegayaa haddii aadan inaad kaa codsanayaa inaad muddo shareecada aad ku tagto baan kaa codsanayaa maanta tuba tukiilow baa la yidhi war gabdhihii yaryaraa gabdhihii ugubka ahaa dhallinyaradii intiiba wejigaa laga tooganayaa waad aragtaa dhulbahanta wixiisa iyo gudihiisa dhulka ha dhigtaa lagu heshiiyey bannaanka ha dhigo waxaan ku leeyahay muddo shareecada waa inaad ku tagtaa gobolka sool degmadiisa laascaanood ay ka tashigaana aad ka qayb gashaa waxaan kaloo halkan baaq uga jeedinaya oo ka faa'iidaysanayaa aniga oo aan cidna aflagaadaynayn isimada isaaq awowayaal waxaynu nahay ehel baynu nahay isu abti baynu nahay ilma abti baynu nahay isu sadog baynu nahay xidhiidh baynu leenahay cid waliba ciidanka dadkeedii baa ku jira war allihiin hadduu alla yahay oo islaam tihiin wax wacan baad tidhaahdeen oo soo jeediseen ciidamada musabbixi isma ood gaadhno war innagaa weliba habar jeclo iyo habar yoonis isku ood baynu nahay dhagaxu inta uu gaadhaa buu ku dhacaa baa la yidhi meel aanu gaadhayn kuma dhaco war musabbixi waa nin sacad muusa isma ood gaadhno isma guursanno ma xididno ma rafiiqno ma derisno weliba wuu ka shisheeyaadoo kililka ismaamulka buu yaallaa war haddii uu allihiin alla yahay oo islaam tihiin ciidamadiinna nagala baxa intaa waxaan ku darayaa dhammaan dadkii laascaanood ku shahiiday oo dhan waan u tacsiyeynayaa way naga wada dhinteen gaar ahaan iyo guud ahaanba samir iyo iimaan saadiqa ilaahay dadkii ha ka siiyo iyo eheladii iyo qaraabadii iyo guryahoodii rag iyo dumarba ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacana allaha caafiyo ninka u dambeeyay maxamuud cali saadle waa walaalkay aad iyo aad baan anu nin jacsiyaada baan waa walaalkay buu ahaa anuu iga dhintay waxa aan qurux oo aan ku farxay markii ilbiriqsiyadii iyo aaritaankii loo aaray iyo saaritaankii ciidamada laga saaray baan aad iyo aad ugu seexday habeenkii anigoo murugaysan waxaan leeyahay wadhulbahantow
ha qaadina ninka xabadaha inta lala dhacay la yidhi yaan la taaban oo la qaadin wallaahi ninka ka dhiidhiyi waaya dhulbahante maaha dhulbahante waan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed maxamuud cawiil kawte degmada xudun ee gobolka sool